السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتهين دمان أصحابتا ما والبو أجوكتان كسو دواذا فيديو عصب إن شاء الله. إن فيديو جينا مانتا وحون خندونا فيديو آدي أدو حيسا بدن يعني مارتي يعني فضلا داوشا وعن هدي آتا خفتنا لكو عصب فضلا صار سبسكرايب إي لايك وايو إن شانال كان وحان كغا هدلنا أو كليا سيدا أونلاين كالعاك الله سمايو. أوكي مانتا وحانو كهالينا كريبتو كارنس. أوكي so marka haddii aad taqaantid wuxuu cryptocurrency wuxuu yahay waxa waa okay, laakiin haddii oo aadan aqoonin fadlan google email tag raadid. Okay macnaha oo cryptocurrency wuxuu yahay. Okay aniga maalmo ka hor ayaan waxaan iibsaday cryptocurrency ayaan waxaan ku iibsaday lacag dhan $11. lacagta $11 ayaa hadda wuxuu isku bedelay $59. sorry $59 ma halkan dollar waa lacag kale waa $58. waa halkaas u jeedaan waa $58. so marka waxaan rabaa inaan idin sheego crypto uu yahay iyo waxaan rabaa inaan idin sheego hab kale oo aan maalin walbo oo aan ku helo boqol iyo soddon ilaa iyo boqol iyo afartan oo coins ah for free. Okay marka hore haddii aan halkan kusoo laabano oo aan idin tusiyo cryptoga aniga aan gatay magaciisa waxaa la dhahaa maartay Shiba Inu ayaa la dhahaa. Okay Shiba Inu hadda waxaan hadda helay 258 Shiba Inu coin oo free ayaan helay. Okay sideen ku helay maalin walbo halkan waxa ujeedaa halkan taariikhda soo ujeedeen halkan ujeedeen 329 halkan ujeedeen Soomaan waa taariikhda. Okay maalin walbo waxaan helaa 121 oo coins ayaan helaa oo si free marka hore waxaa sameysaa crypto soo iibso haddii oo aadan aqoonin meel crypto laga iibsado fadlan commentiga ama maartay lambarkeyga ayaan waxaan soo dhigayaa qaybta hoose ila soo xiriir. Okay so marka waxaa sameysaa markii oo aad iibsatid cryptocurrency marka hore waxaa laga rabaa inaad iibsatid marka hore waa inaad sameystaa wallet. Okay markii aad walletkaas oo aad sameystid walletkan magaciisa waxaa la dhahaa Binance wuxuu yaalaa Google Store-ka Play Store-ka soo degso isdiiwaangeli magacaaga iyo kull information uu ka rabo markii aad gelisid kulli kadib wuxuu ka rabaa in aad marka hore aad iibsatid lacagta USDT oo maartay oo loo yaqaan. markii aad lacagtan ay iibsatid marka dambe waxaad leedahay deposit. markii aad dhahdid deposit kadib wallet address-kaaga waa mid ku gooni ah. wallet address-kan ayaa leedahay oo ah meesha lacagta lagu soo dirayo. markii lacagta lagu soo diro oo ay maartay lacagtaada waa in ay lacagtaada ka badataa $20. Okay so markii oo aad lacagtaasi oo aad dalbatid waxaad sameysaa markii lacagta lagu soo diro halkan waxaad sameysaa meesha oo ay ku qoran tahay convert ku dhufo. markii aad ku dhufatid convert qaybta kore oo ay ku qoran tahay USDT waa inay USDT ay ku ahaataa qaybta hoose. tusaale waxaan rabnaa Shiba Inu Soomaan lacagta aad rabtid dooro Shiba Inu ayaan dhahay confirm ayaan leeyahay. marka wuxuu leeyahay lacagta u yar waa inay ahaataa $20 Soomaan. marka $20 aniga laakiin $9 ma kasoo wareejinin maartay halkan waxaan kasoo wareejiyay crypto kale. so marka lacagteed marka waxay ahayd $12 waxa ka yar $20. kadib waxaa sameysaa markii oo macnaha oo ay maartay $20 oo aad dhahdid convert kadib qaybta hoos ku dhufo preview kadib lacagtaada Shiba Inu ayuu isku bedelaa. Okay si aad maalin walba u heshid lacagtan waxaad imaanaysaa qaybta kore qaybta sare oo maartay halkaas imaaw wajiga ku dhufo kadib waxaa leedahay calaamadan oo inta maartay iska xir. markii aad xirtid
markii aad xirtid lacagtaada walletka caadi ayay kugu jirtaa okay markii aad xirtid waxaad imaanaysaa meeshan oo ay ku qoran tahay more halkan imaaw halkaas imaaw more kadib waxaad dhahdaa kadib waxaad imaadaa meesha oo ay ku qoran tahay staking halkaas imaaw ku dhufo markii aad ku dhuftid staking waxa mataqaantaa waa sida cryptocurrency mining oo kale waay okay maalin walba waxa ku soo dhacayso percentage so marka waa kana halkan ay ku qoran yihiin hadii oo macna DRA gan hadii ma artay ay hastid waxa ku soo dhacayso 43 10 maamul 10 days gudahooda 10% marka waa qaabkan so marka lacagteeda marka waxa waay Shiba Inu Soomaan halkan ayaan waxaan ku qorayaa Shiba Inu crypto adiga ay hastid okay kadib waxa la staking for 90 days iyo 60 days iyo waxa waay 30 days okay percentage-ka oo ku soo dhacay maalin walba wuxuu kugu qoran yahay halkan ayuu kugu qoran yahay saas ogow markii aad staking aad dhahdid oo aad confirm dhahdid lacagtaada walletka caadi kama arkaysid qaybtan ayaad arkaysaa okay lacagtaada qaybtan oo halkan hoose ayaad ka arkaysaa walletkan imaaw ku dhufo kadib waxaad arkaysaa lacagta halka dollar dheeraadka waa lacag aniga US ma arti oo USDT ah soo marka lacagta kale caadi waatana waa halkan ay taala soo marka total staking ka lacagta oo aan ka helay ayaa halkan igu qoran okay totalka okay mid kale halkan waxaad kala soconaysaa mid kale halkan waxaad kala soconaysaa meesha oo ay qoran tahay aan waa halkan aan Soomaan so marka waxaad kala soconaysaa inta lacag oo aad adiga heshay waa qaabkaas fadlan ha laga faa'iideysto lacagtaada waxay kugu jirtaa maartay meesha waxaad sameysaa maartay trade iyo maartay waxyaabahaas xagalin holders ahaw coin-kaaga heeso insha Allah sida anigu u faa'iiday iyo si ka badan waad ku faa'iidi doontaa crypto wuxuu joogaa qiimo oo aad iyo aad u yar ayuu joogaa waxaad gadan kartaa 1 milyan waxaad gadan kartaa 2 milyan 1 milyan hadda wuxuu maraa ayaan filaa $40 meelaas ama waxaad gadan kartaa 100,000 inta alla inta adig ay jeceshay waa raqiis okay so marka halaga faa'iideysto maartay waa kaas haddana assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh